warar dheeraada ayaa ka soo baxaya koox tooray ku hubeysneed oo xalay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug oo ku dilay gabar dhalinyaro ahayd. Gabadhan ayaa waxaa la sheegay in rag ku hubeysan tooray ay ku weerareen xaafadda Garsoor ee waqooyiga magaalada Gaalkacyo. Kooxda ayaa la sheegay in gabadha oo ka soo baxday salaadii taraawiixda xalay waxa ay tooray ka geliyeen dhuunta, waxaana gabadha oo lagu magacaabi jiray Nimco Cumar Shire Xuurey ay u geeriyootay dhaawac ka soo gaaray weerarkaasi bahalnimada ahaa ee ay ku qaadeen ragga toorayda ku hubeysnaa. Goobjoogayaal waxa ay sheegeen in raggii ka dambeeyay falkaasi ay goobta ka baxsadeen dilka kadib, waxaana goobta looga qaaday dhaawac ahaan iyadoo ku geeriyootay gabadha ugu dambeyn cisbitaalka magaalada Gaalkacyo. ilaa ay hadda ma jirto cid si gaar ah u sheegatay mas'uuliyadda dilka gabadha yar iyo sababta loo dilay. Hayeeshee haweenka kale ee habeenkii aadi jiray salaada taraawiixda magaalada Gaalkacyo ayaa waxa ay sheegeen in walaac iyo cabsi ay soo food saartay, taasoo ay ku tilmaameen inaanay hadda ku dhiiran karin u bixista bannaanka maadaama la beegsanayo haweenka taraawiixda kusoo dukada masaajidada magaalada Gaalkacyo. Falkan ka dhacay magaalada Gaalkacyo oo si weyn shacabka ay uga argagaxeen ayaa noqonaya fal kale oo tacaddi ah oo haweenka ku nool gobolka Mudug gaar ahaan waqooyiga magaalada Gaalkacyo loo geysto kadib markii sida la wada xusuusto magaaladaasi lagu dilay gabar yar oo lagu magacaabi jiray Caaisha Ilyas Aadan, taasoo la kufsaday kadibna la dilay.